Assalaamu calaykum. Sida xaqiiqda ah, cunidda toonta ayaa laga helaa faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah. Qarniyo badanna waxaa loo isticmaalayay qaabab kala duwan oo daawo iyo cuntaba isku ah. Toonta ama tuunta waxaa ku jira maaddooyin badan oo isku tegay, xoojiyana difaaca jirka si loola dagaallamo jeermis kasta oo soo weerara jirkeenna ama caafimaadkeenna. Waxyaabaha la xiriira caafimaadkeenna kuwaas oo ay naga saaciddo toonta ayaa waxaa ka mid ah caafimaadka wadnaha iyo maskaxda oo hagaaga. Sidoo kale, kor u qaadista daafacana waa tan ugu muhiimsan ee ay toontu noo tarto. Muuqaalkeenna maanta ayaan kaga hadli doonaa sida toontu ay muhiim ugu tahay hargabka iyo xanuunada kale ee uu keeno fayruska sida COVID-19 oo kale. Ka hor muuqaalka, haddii ay tahay markii kuugu horreysay channelka aadna danaynayso barnaamijyada caafimaad oo caynkani oo kale ah, fadlan like dheh, subscribe saar channelka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh. Aan bilaabo fiidiyowga. Ugu horreyn, waxaan si qoto dheer u sharxaynaa habka iyo waddada ay toontu u keento kor u qaadista daafaca jirkeenna loogana hortago xanuunno badan oo noo geysan lahaa saameyn caafimaad oo na diloota. Toonta ama tuunta, hadba siduu qofku u yaqaan, ayaa ah miro kulul oo isku xiran. Muuqaal ahaan waa mid cad oo godan, waxaana ku jira maaddo loo yaqaan alliin, taas oo markii la ruugo, la jarjaro ama la tumo isku beddesha maaddo kale oo loo yaqaan alisiin, ahna midda la rabo inay shaqo gasho si jirka ay wax ugu tarto tuuntu. Dhadhanka iyo urka toonta ayaa ka soocan midhaha kale, waxa ayna leedahay maaddo loo yaqaan salfar oo ku jirta alisiinkii aan ka soo hadalnay siduu ku imaanayo. Si kastoo ay tahay, alisiinka ayaa isbeddeli kara si dhaqso ah, waxa uuna noqon karaa maaddo leh salfar si ay u noqoto mid daawo laga heli karo. Toonta ayaa waxtarkeeda kaliya yimaadaa saddexdaan midkood: ruugid, jarjarid iyo tumid. Mar kasta oo aad cunto toonta, waxaa sare u kacaya difaacaaga jirka. Fayrus kasta oo la mid ah hargabka halkaasi ayaa lagu burburiyaa. Cilmi baarisyo ayaa sheegaya in isticmaalka toonta uu yareeyo inaad qaadid fayrus sida corona ama hargabka oo kale ah. Sidoo kale, haddii aad qaadid xanuunka, toonta ayaa yaraysa saamaynta calaamadaha cudurkaasi ka dhalan lahaa iyo intuu ku hayaba. Cilmi baaris lagu sameeyey 146 shaqaale caafimaad oo qaarkood la siinayay tuun, qaarna la siinayay kaniiniyaal aan wax daawo ah ku jirin, waxaa ka soo baxday in 60% dadka tuunta qaata aysan qaadin hargab, halka kuwa toonta qaata ee uu ku dhaco hargabku ay 70% ka badbaadaan calaamadaha daran ee cudurka. Cilmi baaris kale ayaa iyaduna sheegtay in dadka cuna maalinkii 2.56 garaam oo tuun ah ay 60% ka badbaadaan xanuunada hargabka la midka ah, haddii uu ku dhacana uusan wax dhiba u geysan marka loo eego dadka aan waxba isticmaalin marka uu ku dhaco hargabka iyo xanuunada la midka ah. Waxaa jira waxyaabo yareeya waxtarka tuunta sida in la kariyo oo kale. Sidaasi darteed, mar kasta tuuntu waxa ay ku wanaagsan tahay oo ay waxtar ku leedahay inaad isticmaasho iyadoo ceeriin ah. Waanada ugu dambaysa, maadaama uu jiro cudurka COVID-19, waxaa wanaagsan nadaafadda iyo xirashada afka iyo sanka inaad ku dadaashid. Sidoo kalena aad badisid isticmaalka tuunta
liinta iyo afakaadhada si ay ka hortag iyo daaweynba kuugu noqdaan. Badbaadi qoyskaaga iyo asxaabtaada oo ka fogow haddii aad dareento calaamadaha cudurka corona, sababna ha u noqon dhimashada waayeelka waalidka noo ah. Muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar, hana iloobin inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkana aad furato. Commentiskana igu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale. Fiidiyowga inoo xiga insha Allah.